tan iyo intii isbeddelka siyaasadeed uu ku dhaqaaqay dalka Itoobiya waxa isa soo taraya horumarka laxaad kale kaabayaasha dhaqaale iyo dhanka siyaasadda iyo isdhexgalka bulshada iyo nidaamka dimuqraadiga ama luqadda Soomaaliga lagu yiraahdo xorriyadda iyo inuu qof walba u hadlo naftiisa iyo nafta bulshada Soomaaliyeed awal hore kama jirin Itoobiya inuu qofno qof u hadlo una yiraahdo dulmi ayaa lagu hayaa balse hadda oo 2018 laga soo bilaabo tirsi taariikheedka reer Yurub ilaa 2019 iyo kan cusub ee galay ee 2020 wuxuu dalka Itoobiya ku talaabsaday horumar laxaad leh oo ku saleysan nidaamka isdhexgalka bulshooyinka ku nool dalka Itoobiya sagaalka kilil ama sagaalka qowmiyadood ee diimaha kala duwan iyo dhaqamada kala duwan ee dalka Itoobiya ka jira haddana waxay ku yihiin walaalo hase yeeshee isbeddelkan wuxuu saameyn ku yeeshay guud ahaanba dalka Itoobiya khaasatan deegaanka Soomaalida tani waa caasimadda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga oo hoos yimaadaan 11 gobol haddaba shacab weynaha deegaanka Soomaalida ku nool guud ahaanba waxay ku soo qulqulayaan caasimadda deegaanka Soomaalida si ay u helaan waxbarasho tayo leh iyo nolol tayo leh iyo waliba isbeddelka xawliga ah ee ka hana qaada guud ahaanba deegaanka Soomaalida caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga haddaba caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxa ku soo qulqulaya 100,000 kun oo qoys iyo qof oo ka yimiday wadamada qurbaha ah iyagoo markaasi ku noolaa xaalad ka duwan xaaladda deegaankooda qaarkood aynan arkin 11 sano qaarkood aynan arkin 10 sano qaarkood aynan arkin 8 sano haddaba dadkan ayaa waxa ka fogeeyay deegaankooda Soomaalida dhibaatooyinkii iyo hagardaamadii ka jirtay guud ahaanba dalka Itoobiya ee deegaanka Soomaalida caasimadda magaalada Jigjiga waxay noqonaysaa caasimadaha dalka Itoobiya kuwa ugu caansan uguna quruxda badan laguna marti sooro marti weynta guud ahaanba timaada dalka Itoobiya khaasatan magaalada Jigjiga dhawaan ay ahayd markii lagu soo dhaweynayay xuska magaalooyinka iyo sidoo kale waxa lagu soo dhaweeyay xusas kala duwan iyo shirar kala duwan oo guud ahaanba geeska Afrika ka dhaca ama Soomaalidu ay ku qabsato waxaan ugu dambeeyay shirkii looga wada hadlayay arrimaha Djibouti iyo Soomaalida Itoobiya iyo Itoobiya Mahidiin Maxamed Cabdullaahi Kalsan TV Jigjiga